waxa adeegsan doona wasaaradda horumarinta caafimaadka marka loo baahdo waxa reeban in dalka laga saaro dhammaan agabka caafimaadka iyo daawooyinka dhammaan muwaadiniinta leh xirfad caafimaad ee aan ka tirsanayn shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka waxa lagu wargelinayaa inay si mutadawacnimo ah isku diiwaangeliyaan maamulka caafimaadka ee gobolka iyo degmada u dhow goobaha waxbarashada dalka dhammaan goobaha waxbarashada dalka ee dawladda iyo kuwa gaarka ah sida jaamacadaha iskuullada caadiga ah ee maalintii la dhigto iskuullada hoyga ah ee boardingka ah xarumaha agoomaha waxa lagu baro dhammaan marka laga reebo kuwa dawladdu gacanta ku hayso oo si gaara loola socon doono xaaladooda waxa la xidhayaa muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa maalinta khamiista ee bishu ay tahay 19 bisha 3aad 2020 masaajidada waxa lagu amrayaa dhammaan imaamiyada iyo muwaadiniinta masaajidada inay xilliga salaadaha faralka ah ku soo koobaan muddo aan ka badnayn 25 daqiiqo sidoo kalena waxa la farayaa inay xidhaan dhammaan musqulaha iyo meelaha lagu weysaysto ee masaajidada muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmaysa 19 bisha 3aad 2020 dhammaan imaamiyada iyo muwaadiniinta waxa la farayaa inay furaan daaqadaha iyo albaabada masaajidka bulshada waxa la farayaa inay ku soo weysaysato ama ay ku soo weysa qaadato guryahooda iyo meheradahooda qofkii dareema calaamado muujinaya hargabka ama wax u eg waa inaysan iman masaajidada oo ay ku tukadaan guryahooda iyo meheradahooda waxa la farayaa imaamiyada inay ducada qunuuda ee salaadaha dhammaan ay nooga duceeyaan dhibaatada uu leeyahay xanuunkani isu imaatinka bulshada waxaa lagu wargelinayaa bulshada Soomaaliland in la joojiyo dhammaan isu imaatinada bulshada sida shirarka xafladaha casuumadaha aroosyada iyo ciyaaraha iyo wixii la mid ah iyo marfishada qaadka muddo 4 toddobaad oo ka bilaabmaysa 19 bisha 3aad 2020 socdaallada iyo duulimaadyada diyaaradaha dhammaan duulimaadyada ka imanaya wadamada nidaamkooda caafimaad la isku haleyn karo waxay wasaaradda horumarinta caafimaadku ee Jamhuuriyadda Soomaaliland la socon doontaa xaaladda rakaabka ka imanaya iyadoo rakaabkaas loo sameyn doono baaritaan dhameystiran laguna sameyn doono garoomada diyaaradaha ee Soomaaliland waxa la joojiyay dhammaan duulimaadyada iyo rakaabka ka imanaya dalalka xaaladoodu khatarta tahay sida Shiinaha Talyaaniga Iiraan Faransiiska koonfurta Kooriya Spain Kenya iyo Soomaaliya laga bilaabo maalinta berri laga bilaabo 19 bisha 3aad 2020 waxa dhammaan muwaadiniinta Soomaaliland loogu baaqayaa inay ka baaqsadaan safarrada aan muhiimka ahayn ee dalka dibadiisa waxa dhammaan qurbo-joogta reer Soomaaliland loogu baaqayaa inay hakiyaan socdaallada aan laga maarmaanka ahayn ee ay dalka ku iman lahaayeen ilaa inta xaaladda adduunka ee xanuunkani ay ka soo reynayso gudiyada gobolada ee u diyaargarowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus si loo xoojiyo u diyaargarowga iyo ka hortagga xanuunka coronavirus waxa la dhisay gudiyada gobolada oo ka kooban gudida nabadgelyada ee heer gobol oo ay xubin ka yihiin isudubayaasha wasaaradaha soo socda wasaaradda horumarinta caafimaadka wasaaradda diinta iyo awqaafta wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda warfaafinta wacyigelinta dhaqanka iyo wasaaradda horumarinta waxbarashada gudidan aan xusnay waxay fulinaysaa qorshayaasha iyo tilmaamaha wasaaradda caafimaadka dhinaca kalena waxa hadalka iska daba qaatay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland wasiirka wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyagoo geestooda kale bulshada Soomaaliland faray in aanay wax dhaqdhaqaaq ah yareeyaan goobaha bulshadu isugu yimaadaan wariye kasta ama website kasta ama TV kasta ama qof kasta oo meediyaha shaqul ku leh
waxaa saaran mas'uuliyad ka duwan ta dadka kale ee caadiga ah. wasiirka waxbarashadaan ahay horta waxbarashada goobaha ee la xidhay kala reebid male ilaa waxay ka soo bilaabayaan malcaamada iyo kuwa barbaarinta caruurta dugsi hoose dhexe sare jaamacad maxad kuwa luqadda lagu barto kuwa kombiyuutarka lagu barto meel wax lagu barto xitaa meesha gawaarida lagu barto meel wax lagu barto oo furnaan karta ma jirto laga bilaabo 19 bisha saddexaad oo maalinta khamiista muddo 4 toddobaadaba ayay xidhnaanaysaa innakiyo waxaan ku dhahdaayay Itoobiya oo meel kasta oo la soo marayo aynu ku lahaano dadkii caafimaadka ee dadkan waxaan ku dhahdaayay maamulayay dawladahaynu jaarnahay dadka qaar waa la sheegay intaasoo dal soo maray oo markay dalkii ka degeen lagu ogaaday inay xanuunkii xambaarsan yihiin وياسر أحمد الله ياسر أشكى تلفزيون كسان مقالة هركيس